maanta halkan waxaan soo gebagebaynaynaa wejigii koowaad ee qalliinka carruurta ka xanuunsan kaadi-haysta xubnaha taranka iyo mataqaanaa uur-ku-jirta. dhakhaatiirtan dhakhtar kamid horey ayuu u yimid. waxaa horey loogu sameeyey baaritaan waagaas hore 30. hadda markuu yimidna 5 maalmood soo dhaafay waxaa baaritaan loo sameeyey oo xanuunadan qabay ilaa iyo 70 canug, taasoo ka dhigan 100 carruur ah in la arkay ilaa iyo hadda. waxaa qalliin loo sameeyey 15 canug oo 4 maalmood ee lasoo dhaafay, oo qaarkood qalliimadoodu ahayn qalliimo runtii waqti badan qaatay oo culus ay la dhibanaayeen in muddo ah, taasoo dhibaato ka haysay qaarkood aanay kaadin karin siday noo sheegeen waalidiintooda muddo badan. laakiin maanta alxamdulilah rabbil caalamiin carruurtaas dhibkaas waa laga qaaday. maanta insha allahu tacaala waxaa imaan doontaa dhakhtar kale, dhakhtarad ka imaan doonta iyadana dalka Talyaaniga. berrina waxaan sugaynaa dhakhtarad kale oo ka imaanaysa dalka Talyaaniga oo ayagan u imaanaya barnaamijkan xanuunka ay qabaan carruurta Soomaaliyeed, haddii ahaan lahayd qalliimada guud iyo qalliimada gaarka ah sida wadnaha oo kale xal waara loogu heli lahaa. We did a few cases in this week, but important cases. But I think more and more cases we can share together, and especially we in the future we can develop this project also to create canals with our hospital and to strict our relationship, also relationship with other hospital, also here. So I hope this project will become greater and greater. We are available. Thanks also to my staff and to my 2 friends that are here with me. I would like to thank Hormuud Foundation for hosting us. Of course, Edna that organized everything and that she really felt like a mom. We worked, we did 15 cases. We saw more than 70 patients in this mission, 30 the missions before. We worked around the clock, one times around midnight, and the staff here was always with us. They didn't complain, they worked with us, they listened, they gave also suggestions. Thank you to Hormuud Foundation for this project, to all the people here in Siman Hospital, because I think that this project will be grow and grow in future. Thank you, Edna, for the perfect organization of all the travel and from here to the airport, from here to the hotel. It was everything very, very good. maanta in dadaal aan ku jirnay usbuuc inuu noo soo gabagaboobo, dadaalkaas oo mahad weyn aan uga celinayno maama Edna oo abaabulkeeda leh, dhakhaatiirta Talyaaniga nooga yimid. waxaan oo dhan suurtagal ma ahaan lahayn Hormuud Foundation la'aanteed. waxaan ugu dambayn aan mahad gaara aan siinayaa staafka iyo shaqaalaha isbitaalka Siman Hospital. waxaan ku faraxsanahay oo indhaha ku aragnay bukaanadii qalliimada loo sameeyay, adeegga loo sameeyay, dhalaankii loo shaqeeyay iyo waalidkoodii qaybtii koowaad oo saaka runtii aad u faraxsan. waxaan isleenahay wax qabad weyn ba halkan ka dhacay in alle intii qayb ka noqotay juhdigooda ku bixisay, waqtigooda geliyay. waxaan rabnaa inaan runtii aan la wadaagno mahadcelintaasi, farxadda aan la wadaagno ay runtii guusha ay ka gaadheen hawshan. waxaan la soconaa warbixinaha ku jiray inay jireen qalliimo dhaadheer oo qaatay saacado ilaa 5 saacadooda, xilliga la saqdhaxa la soo jeeday. dhammaan runtii hawshaasi fushay ee waddankeena ka fushay iyo gurmadka dhakhaatiirta Talyaaniga nooga yimid waa arrin aan bogaadinayn. ku soo dhawaada waddankaas sheegtay waa waddankiinii. waxaan idin leenahay gracias mille. Thank you so much.